waxaa saaka soo caga dhigatay garoonka caalamiga ee Heathrow International Airport diyaaradii sideejilayaasha caanka ee u dhashay Somaliland Sooran iyo jawaan oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen reportka safiirka Somaliland u fadhiya wadankan Ingiriiska agaasimaha TV-ga qaranka ee qaaradda Yurub iyo shaqaalaha qaar kamid ah shaqaalaha telefishinka qaranka iyo waliba dadweyne kale oo tiro badan waxaanay qayb ka yihiin wafti ballaaran oo ka soo kicitintay wadankiisa ay uga qayb qaataan shacabka Somaliland ee wadanka Ingiriiska xuska maalinta qaran nimada 18 May iyadoo ay hore u soo gaareen dalka Ingiriiska wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yoonis wasiirka warfaafinta Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse maayirka Ceerigaab waliba mas'uuliyiin kale oo dhamaantood maalinta barita ee xadda kula ciidi doona shacabka Somaliland xuska ballaaran ee ka qabsoomaya bariga magaalada London agaasimaha telefishinka qaranka ayaan ku bilaabaynaa inuu kelmadaha soo dhaweynta ay noo yiraahdo بسم الله البشارات ضمن سنتاي طبعا ما أنت ومالين تاريخية وإن لتشوجا لبدي أبوان مشاكليستي سورانية جوان وما شاء الله أنا متقبل وقيمي سفير كبا إن لتشوجا شعبي فربضانو في الصومال لأنه سود ويني إن لتشوجا هذا 18 ما يدور كنا نغندون تو مد لسكوار كوان لوكال هارين لبدا أبوان أدان سود ويني إنجليزي وسود ويني وأمريكي وجوريسي سفير كنا ويقدم بينا يا مركا واد ما سنت الحمد لله aad bad mahadsan tahay baladaba dareenkooda ayaan rabnaa inaan wax ka ogaano labada abwaan kadibna safiirka ayaan u gudbi doonaa jawaan soo dhawow baan ku leeyahay dareenkaagu sidoo yahay intii aad soo socotay maxaad la kulantay horta dareenkaygu waa iska wanaagsan bal ninkan ay ga weynooyin badan diyaarada raacay kulankitii Afrika 7 qaxootiga qaaday bal horta isaga ku horeysa anigu dambeeye marka dambe dareenkayga sheegi doonaa waagii hadaba Sooran baan ku horeynaa Sooran sidee dareemaysaa maanta London baatimo markii kuugu horeysay safar dheer bad soo gashay maxaad la kulantay waxaan dareemeynaa farxad baan dareemeynaa oo ninkan Ingiriisiga yaqiin baa iga baxay oo anigu Carabiga yaqiinay oo ku hadli jiray laakiin aad iyo farxad aad iyo baan dareemeynaa waan fiicanahay nabad qab baan ku nimi waxaanu ka qayb qaadanaynaa dabaaldega xuska waxaanu ka rajaynaynaa inay noo soo baxdo sidii ugu wanaagsanayd sanadka kale hadii Ilaahay ka dhigo maxaad u ballan qaadaysaa shacabka u timaadeen waxaan u ballan qaadaynaa barnaamij wanaagsan aan u soo diyaar gareynay oo aan habeenka u soo bandhigi doono hadii Ilaahay ka dhigo jawaana waan kugu soo noqday maxaad noo sheegaysaa waxa sheegaya ninkan horta bambiga yara sheego wuxuu yiri Ingiriisiga yaqaano kaga baxay anigu inantii cadeed waxaan ku uri weer out the door out weer markaas ay ku tiri halka ka soo halka ka laabo markaas aan ku uri okay inta bambiga yara sheega isaga salfakeer baa la madaxweynaha Suudaan markaas ay yiri ariyo salfakeer markaas uu no waba la sii deyn lahay intaas waa iska kaftan de waxaan dareemeynaa farxad yar reer maanta maalintii noogu horeysay fi taariikh abad aanu dhibin caasimada wadanka Britaniya gaar ahaan magaalada London garoonkii aanu imika garoonka magacii Heathrow Airport magaalada dhexdiisa aanu ku jiro aad iyo aad baanu u faraxsanahay dadweynaha reer Somaliland dhamaantood halka joogta waxaanu 18 May kaga qayb qaadan doonaa si farxad ku dheehan tahay si wanaag ku dheehan yahay si sharaf ku dheehan yahay si dhaqsaana waan u kaambaagi doonaa insha Allah bidnillaahi kariim aad maasantay kulay aniga iyo in badan oo halkan ku suganimo waxa farxad noo inaan qosolay dadka ka hortood ama 18 May hortood madaxdii dawladda meel ku sii soconaa safiirka Somaliland ee wadanka Ingiriiska kelmadaha soo dhaweynta bismillaahir rahmaanir rahiim wa sallallahu ala sayidina mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waa inoo farxad inuu wafdigii soo dhameystirmo maanta oo ay inoo yimaadaan labada jilaa ee caanka ah ee la wada sugayay insha Allah Sooran iyo jawaan oo maanta halkan si nabad qaba uga soo dagay baynu soo dhaweynaynaa dhamaanteen waxaanu leenahay ku soo dhawaada London ku soo dhawaada UK kulay waxaad soo marteen safar dheer iska nasta insha Allah maanta Britania waa maalintii weynayd insha Allah waxaanu bulshada reer Soomaaliyeed ugu bishaareynaa inay diyaar u yihiin barnaamij wanaagsan oo sidaan iyagana waynu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay London waa taa waan idinku soo dhaweynaynaa majaajilistayaasha caanka ah ee ka soo jeeda reer Somaliland ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ee Heathrow International Airport ee magaalada London waxaana la filayaa maalinta berrito inay shacabka reer Somaliland kula dabaaldegi doonaan xafladda weyn ee 18 May oo ka dhici doonta bariga magaalada London waa Cusmaan Maxamuud Jaamac iyo Bishaaro Banda TV-ga qaranka